markaynu warbaahinta daawanayno siiba warbaahinta bulshada waxaynu aad loo qaadaa dhigaa arrimaha siyaasadda mucaarad muxaafad waxay warbaahintu muujisaa arrimaha ay ku kala duwan yihiin ay ku kala durugsan yihiin laakiin waxaa jira arrimo ay siyaasiyiinta muxaafadkooda iyo mucaaradkooduba ay ka midaysan yihiin waa qisadan aanu idiin soo wadno oo loo midoobay waa inan yar oo magaceeda la yidhaahdo mumtaaz cawil cumar oo uu ku dhacay xanuunka lokeemiyada ama kansarka dhiigga waxay ku sugan tahay magaalada muqdisho waxaana u dhaqaaqay dadyow badan ilaahay khayr ha siiye waxaana ka mid ahaa raggii u kacay xildhibaan ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya ahna bahda mucaaradka waa xildhibaan cabdiraxmaan odowaa waxaanu ka tirsanaan jiray dawladdii hore waxaanu soo maray wasiir cabdiraxmaan wuxuu u tagay mucaaradkii iyo muxaafadka hadda jooga waxaanu u soo ururiyay inantan yar oo u baahan lacag gaadhaysa $100,000 waxa uu soo ururiyay in ka badan $20,000 aynu dhageysano hooyadeed iyo dadyow kale oo arrinkan ka qayb qaatay sida ay xaaladda mumtaaz soo martay iyo halka ay marayso iyo waxa loo baahan yahay bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa Sahra Aadan Axmed Yuusuf gabadhan yar oo iga xanuunsan waa Mumtaaz Cawil Cumar Maxamed Mumtaaz waxaan ka soo qaaday magaalada Dhahar ayadoo xanuunsan Mumtaaz xanuunkeeda dhiig baa afka iyo sanka iyo dabada ka baxaya Mumtaaz waxaan keenay Garowe Hargeysa iyo Itoobiya waxaa la sheegay inuu cudurka kansarka hayo dhiigga iyo dhuuxa Mumtaaz waxaa la sheegay inaan dalka waxba laga qaban karin ilaahay baa wuxuu qabanaya Mumtaaz aad bay u xanuunsanaysaa dhiig baa dabada iyo sanka iyo afkaba ka baxaya Mumtaaz waxay sameynaysaa aad bay dhulka isula dhacaysaa aad bay u camanaysaa habeen iyo maalin aad bay u xanuunsanaysaa Mumtaaz waxa lagu shubaa dhiig 1500 cc ama 2000 cc wixii loo helo asbuuci 2 jeer baa lagu shubaa dhiiggaas anigu hadda waxaan ku suganahay Muqdisho waxaan joogaa hotel waxa ay keenay hotelka xildhibaan Cabdiraxmaan Odowaa oo ku arkay Mumtaaz ayadoo aad u dhiban baraha bulshada ina soo wacay hotelkan ay keenay kaalin weyn ka galay hawsha uu qabtay xildhibaan Cabdiraxmaan Odowaa lacag 20,680 ayuu farta iga saaray wuxuu isagu keenay iyo wuxuu dadka soo qaadayba walaalaha Soomaaliyeed uu ka soo qaaday xildhibaan Cabdiraxmaan Odowaa aad iyo aad baan u mahadsan tahay adeer ilaahay miisaanka xasanaadkana ha kuu saaro hawsha weyn aad noo qabatay sida weyn aad noo kaalmaysay aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxa ka qayb qaatay hawsheeda isaguna kaalin weyn ka galay samafale Maxamed Yuusuf Tigay oo aad ii caawiyay anigoo aan magaalada kala garanayn maxay tahay soo hagay garoonka igu yimi isbitaalka Digbeer geeyay hawsheeda kaalin weyn ka qaatay isaguna Mumtaaz dhaqaalaha ay u baahan tahay waa $100,000 oo dhiigga laga bedelayo in dhiigga laga bedelo maahe waxay dhahay rajo kale ma laha bismillaahi raxmaani raxiim marka ugu horeysa ilaahay subxaanahu wa tacaala ma hadle marka xigtana waxaan u mahad celinaynaa ummadii Soomaaliyeed ay ugu horeeyaan mas'uuliyiinta qaranka xildhibaanada iyo dadka aqoon-yahanka ah ee soo caawiyay Mumtaaz inta dhiman aabado walba oo Soomaaliyeed iyo hooyo walba oo Soomaaliyeed iyo qof walba oo Soomaaliyeed oo damqasho leh waxaan leenahay aynu ka wada qayb qaadano badbaadinta aynu ku badbaadinayna Mumtaaz oo u baahan in dhuuxa iyo dhiigga laga bedelo inaynu iscaawino dhaqan baynu u lahayn dhaqankeennii maanta saqiirka yarka Mumtaaz oo ayna ka codsanaysa inaynu nafteedna badbaadino aynu dhammaanteen wada badbaadino aynuna u kacno in ilaahay subxaanahu wa tacaala masaayibayada adduunka ee maraya uu dhinacno kaga mariyo oo uu inoo kaga xijaabo waxaa teleefanka igula soo hadlay xildhibaan Cabdiraxmaan Odowaa oo qadka ku arkay markaan aniga page-kayga soo dhigay oo igu yiri waxaad geysaa hotelkaas maadaama gabadha markii ay dhaqaatiirtu yiraahdeen waxba kama qaban karno waxay sheegeen in hotel laga bixiyo isbitaalka oo ay magaalada meesha ka aadi lahayd ka aado anigoo isbitaalka booqasho u tagaan meesha ku arkay gabadhii waxaa loo qaaday guri bakaara ku yaala xoogaa kuleyl bay ku qabatay inantii gabadh yareed inay marka kooma ku gashay gaartay gurigaan ka soo kaxaynay waxaan keenay hotelkan oo Cabdiraxmaan Odowaa noo sheegay inta kadib waxaa maaragtay ummadda u dhex galay xildhibaan Cabdiraxmaan Odowaa waxaa akoon loo sameeyay ay leedahay Sahro oo ayada wixii si toos ah ugu dhacaan akoonkaas waxaa lacag ku shubay dad maaragtay ilaa maaragtay 10 qof gaaraya dadkaas waxaan rabaa inaan si qaas ah ugu mahad celiyo magacyadoodan aan qof u sheego waxa ugu horeeya ra'iisul wasaaraha dalka
mudane xasan cali khayre oo lacag ku shubay akoonka. waxaa ku xiga xildhibaan cabdiraxmaan odowaa oo asna lacag ku shubay sida ka muuqata akoon balansiga ay leedahay sahra oon soo daawacnay. waxaa kaloo lacag ku shubay maxamed axmed diiriye nin la yidhaahdo. waxaa kaloo lacag ku shubay nuur cali warsame. waxaa kaloo lacag ku shubay maxamed kaynaan. waxaa ku shubay lacag agaasimaha madaxtooyada soomaaliya fahad yaasiin. waxaa kaloo lacag ku shubay nin la yidhaahdo mahad axmed samow. waxaa kaloo lacag ku shubay mursal kediye. waxaa kaloo lacag ku shubay cabdiraxmaan caynte. waxaa jira lacago EVC Plus oo dad badan oo Soomaaliyeed ay ku shubeen laakiin aan magacyadoodii meeshan ka cadeyn oo ayaguna akoon ku jira. waxaa kaloo lacag ku shubay xildhibaan mahad salaad. waxaa kaloo lacag ku shubay xildhibaan geesey. waxaa kaloo lacag ku shubay axmed samow oo asna mar laba goor lacag ku shubay oo ku soo laabtay. marka waxaan rabaa dhammaan dadkaas inaan si wada jira ugu mahad celinno. haye daawadi waa ii bilaabay. hooyaa ii soo gaday. صح wiilbaa loo soo dhiibay. hadda waa fiicana meelahaasaan nagayaa. waa socdaa hadda inay ummadda Soomaaliyeed ay caawiyaan. waxa ka codsanaya dadka ii jeedaan ay caawiyaan.